تعلق هدي قلبه إلهي ميلان هين هدو قلبه نوجستو كو تعلق مو وعادو قاتان هلكا ولغو اختباري اوغو marka qarniga nabi maxamed alayhi salatu wasalaam oo adduunka korkeeda joogay dadka nabi maxamed la joogay haday mi joogeen haday magaalo joogeen haday yaraayeen haday waaweyn ahaayeen haday rag ahaayeen haday haween ahaayeen inta nabi maxamed wuxuu ku xidhay ilaahay dadku inay baryaan ilaahay wax ka qaataan ilaahay baa la baray waxa la baray oo laga dhaadhiciyay dhulka waxba inagama yaalaan wax walba xagga sare ay jiraan xagga sare eega ilaaha kainaadka abuuray xiriir fiican la yeesha markaas kii miiga joogay ilaa kii magaalada joogay kii dhalinyarada ahaa dhammaan ummad waxay noqdeen ilaahay ka wada cabsoonaysa qofka ilaahay ka cabsoodana macsiyo inuu ku dhaco way adkaanaysaa salaada inuu ka tago way adkaanaysaa ilaahay inuu caasiyo way adkaanaysaa bini aadanka xaqooda inuu ku tunto way adkaanaysaa been inuu sheego way adkaanaysaa ballanta inuu baajiyo way adkaanaysaa si sharciga islaamka aan waafaqsanayn inuu socdana way adkaanaysaa marka qarnigaas la raba marka in la raaco qarniga uu nabi maxamed uu sheegay yiri qarniga aan jooga qurunta ugu khayr badan oo rasuulku yiri ha eegin qarniga nolosha dadku ay ku noolaayeen ha eegin dadka la eega dadka waa run xagga gaadiidka iyo muwaasalaadka iyo nolosha iyo imkaaniyaadka iyo waxyaabaha nolosha bini aadanka fudaydinaya inaka ka horumarsan laakiin xagga dadnimada ayaka ka horumarsan been inay sheegaan way ku adkaydiyo xaq bini aadan inay u bareeraan way ku adkay dulmi inay geystaan way ku adkay ilaahay inay caasiyaan way ku adkay nin dhalinyaro ah ayaa habeen iyo nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam masaajidku ka dhex kacay yaa rasuulallah nin dhalinyaro ahay laakiin zinadii ma dayn karaya maxaan sameeyaa zinada halay fasaxabi marka way saxaabadu yaabeen markaa buu nabigu wardaaya waru kaadiya ku degdegine ii soo dhaweey aniga ii soo dhawow walaasha gabdha ma kula dhasheen ha way la dhasheen xumaanta adigu aad ku hamiday ee aad aniga ii weydiisanaysa ruqsadda in iyaka rag kale ula tagaan raalli ma ka noqon markaas uu dhameey dhimasha ka xigaabu habaryaro ma leedahay ha edooyin ha in waxa lagu sameeyo raalli ma kala noqon may dhimasha ka xiga markaa buu nabigu anigana waxaad igu tiri zina ii fasax haday dhacdo zina lagu fasaxi lahaa gabadhaad ka zinaysanaysid ragga halkaa fadhiya ama umbay walaashii ay tahay ama eedo ugu toosan tahay ama habaryaro ugu toosan tahay xumaanta adigu kuwaagii aad u diiday ayakuna kuwooda raalli kala ma abu rasuulku yiri markaa buu yaa rasuulallah dimadaaf ilaahay weydii markaa buu soo dhawow laabtu nabigu gacanta u saaray gacantiisii barakaysnay alayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahu dambigiisa dhaaf farjigiisana ilaahu ilaali xumaanta uu ku haminayna ilaahu qalbigiisa kama saxbo rasuulku sidaas nabigu ku daway ku cilaajiyay cilaaj iimaan ba qalbigiisa ku jira iimaanka qalbigiisa ku jira ayaa u diidaya inuu macsiyada ku dhaco dambi inay tahayna uu garanaya walaakiin nabigu yimid ku soo noqday walaakiin nabigu alayhi salaatu wasalaam sida xikmadda badan uu nabigu isagoo ku qanacsiiyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa lagu yiri rabbiga waxaad ugu yeedhaa dadka waxaad ugu yeedhaa dhinaca rabbiga dacwad ku salaysan xikmad iyo wanaagsan xikmadu waa sunnada weeyaan mawcidada xasanaduna waa quraanka bay culimadu yiraahdeen mawcidatul xasana waa maxay waa quraanka laana quraanku waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa taala nabi walba qaarkii ummadiisa uu risaalada u gaarsiiyay iyo meesha dacwada laga bilaabayay baa quraanka ku taala halkee quraanku ka bilaabay dacwada waxa uu ka bilaabay dadka ilaahay in la bar marka hore amarka marka inay qaataan baa u dhib yaraanaya amarka la baraya amarku waa ilaahay ka amarka bixiyay waa ilaahay
hadday dadku amarka ilaahay tabaaraka wa tacaala doonaan inay qaataan waa in marka hore dadku ilaahay ay gartaan ilaahay cadamadiisa saasuu nabigu u qanacsiiyey kii dhalinyarada ahaa marka inaguna waxaan u baahannahay maanta inaan ku dadaalno maaragtaan mujtamaceen oo dadka zamankan maanta jooga aan u tilmaamno war zamankan maanta aad joogto waxa weeyaan waa zamanada adduunka yimiday zamanadii ugu sharka badnaa buu zamankeenu maanta noqonaya innaga waayo wixii nabigu sheegay oo dhan ee amaaraatu saaca ee ashraatu saaca ee yaryaraay oo dhan zamankeenna maanta way ku egyihiin waa zaman qof run sheegaya cidna aamini mayso ka khaayinkaa la aamini ka run sheegaha cidna ma doonayso ka masaajidka iyo diinta ku xiran cidna warkiisa sadaqi mayso ka munaafiqa maqaaxyaha fadhiya warkiisa la qaadan naasixa ummadda u naseexaynaya warkiisa la qaadan maayo laakiin waxaa laga yaabaa ka qabqablaha ama siyaasiga warkiisa in la qaato dadku maanta mujtamacu ma dadka aqoonyahanka la yidhaha bay ku xiran yihiin badankoodu mise culammaday ku xiran yihiin ya orayaa lagu xidhan yahay aqoonyahan muxuu yaqaanaa marka waxaa laga yaabaa tahaarada inuunan aqoonin waxaa laga yaabaa man rabbuka su-aasha qabriga inuu ka warhaynba waxa sugaaya markaasaa lagu odhanaya waa indheer garato oo qarnigan 50 sane soo socota isbeddelka mandaqada ka dhici doono inuu ka faallooday dhageysta islaantiisa ma tukato ubadkiisu diin ma bare ma yaqaano ma barin isagu ma tukado masaajidka ma lagu arkay meel lagu ma arkay laakiin waa aqoonyahanka reerkeena aqoonyahan waxa weeyaan waa ninka ilaahay yaqaana ee rasuulka yaqaana calayhi salaatu wassalaam ee aakhirada ku xisaabtamaya ee waxa ummadiisa u dana ee maslaxadu ay ku jirto ummadiisa u tilmaamaya kaasaa indheer garato aqoonyahan la odhanaya lidaalika waxaan u baahannahay maanta walaalayaal mujtamaceenu wuxuu u baahan yahay dad ilaahay ku xidhan dad dhalinyaro ah laakiin waaqac la socda maanta waaqac zamankan la yaqaana zamankan muxuu ku xun yahay muxuuse zamankan ku fiican yahay oo inaad kala garataa zamankan runtii waxbuu ku fiican yahay waxau zamankeenu ku fiican yahay maanta waxa weeyaan masaajidii baa inoo badatay meel walba darsi baa laga akhrinayaa meel walba dugsi iyo madrasad meel walba mu'tamaraad iyo jamaacad iyo ijtimaacaad iyo ilaahay dartii baa lagugu dhawaaqayaa meel walba ilaahay dartii baa lagugu naseexaynayaa aalaadkan dadku maanta ay haystaan ee inta badan sharka linoo soo dhex mariyey khayr baa lagu soo dhex mariyey adiga waa xagga zamankan uu ka fiican yahay weeyaan laakiin zamankani maanta intuu dhib inoo geysanayo ayaa ka badan inta dheef inoo geysanayo waa zaman hadduu nabi maxamed uu sii sheegay uu yidhi waa nin dhamac hayo weeyaan zamanka ninka diin waa qabsanaya wuxuu la mid yahay nin dhambiil dhamac hayo oo kaluu la mid yahay maanta oo ay ninka diin haysta waxaa loo arkaa nin zamanka maanta aan la socon karayn wadaad meesha geeridu aadaaba lagu wadaad diin iyo adduunyana ummadii waa loo kala saaro gaala u kala saartay oo waxaa la yidhi kitaabkan la socon kari maayo zamankan haaruun rashiid baa hadalkaa loola yimid oo lagu yidhi qur-aankiinu waa cilm aladyaan buu ka warramaa oo wuxuu ka warramaa qur'aanku shareecadaha iyo aakhirada iyo jannada iyo qabriga iyo qiyaamuhu ka warramaaye waxa zamankan jooga qur-aanku kama warramaa lagu yidhi maxaa ka mida buu dhakhtarnimada qur-aanku kama warramaa lagu yidhi aayad barhkeed baa qur-aanka ilaahay kaga warrama dhakhtarnimada waa aayadee kuluu washrabuu walaa tusrifuu aayaddaa oo aan la dhammaystirin intaa hore oo keliya ayaa dhakhtarnimadoo dhan ka warramaysa buu yidhi markii ninkii gaalka loo macneeyeyna wallaahi qur-aanku waxba kama tegin buu yidhi dhakhtarradii baa waxay ku leeyihiin maanta war cuntada iska yareeya waayo xanuunadan badan ee ummadda hayoo dhan
meesha ay ka imanayaan waa caloosha waana xilli may kugu dhacayaan waa caloosha cunta ay ku jirtay oo cunto kale laga dabageeyey soonkii baa lagu sheegay caafimaad soonki gaaladii baa kule war sooma oo 11 bilood bal ugu yaraan hal bil cuntada joojiyay bay ku leeyihiin oo caafimaadaysaane cilmigoogii bay iyagu ku gaadheen innagana shariicad baa laynooga dhigay shariicad markan ilaahay uu ku leeyahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr marka ilaahay uu ku leeyahay soonka waxa laynigu farad yeelay waxa laynigu talagalayba in laynii fudaydiyo in laynigu adkeeyo maaha fudaydka macno badan baa ka soo baxaya cibaadadii baa lagu fariidiyey caafimaadkii baa ku jira dhinac walba ilaahay nolosha uu ku fudaydiyo ogow salaadii ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira soonka ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira sadaqada ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira oo xoolahaagii marka sadaqadii zakada aad ka bixiso bukhliga ka baxaya bukhliga waa sifo ma baxda baa leeyahay bakhaylnimadu ilaa sadaqadii zakada la bixiyo mooyaan salaadu marka tukato kibirka ka baxaya salaadu kibirkay saartaa soonkuna xanuunku saaraa xajkuna idhaar al-ubudiyya kii malik haya kii miskiinka aha laba yarago cad bay qaadanayaan jabal arafa korkeeda istaagayaan halkaas ilaahay ku barayaan oo adoonimo muujin waxa la leeyahay waka kulligood laba goob aslataan ka bariyaan waa ilaahay bariya ma kala sarreysaan waxa lagu kala sarreeyaa inna akramakum inda allahi atqaakum kiina inigu alla ka cabsiga badan ba ilaagtiisa inigu maamuus badan marka diintan ilaahay waxa uu noo siiyay inaan adduunkan iyo aakhira aan wanaag ku helno oo dhibka kaga baxno oo faqriga kaga baxno oo dulliga kaga baxno oo daaddoonnimada iyo qaxootinimada kaga baxno maanta muslimiintu ayagoo diintii islaamka haysta ayay maanta dadka adduunyada loo gurmanayo waa iyaka dadka adduunyada ugu liita waa iyaka dadka loo talinaya waa iyaka dadka wax loo imlaynaya waa iyaka adoo muslima oo diintan haysta sidee lagugu taliyaa sababtu waa maxay diintan aad ka run sheegin bay ka dhigantay waa bugtaa markaas in buka maxay jira Soomaalidu boqol tali boqol baa noo talinaysa in buka boqol tali boqol baa ku talin dadka adduunka ugu liitay baa ku talin laana waa bugtaantaas waa maxay ضعف الإيمان إيمانكنا ضعيف oday waayeela ayaa nin doctor uu tagay balay markaa uu yiraahdo dhagahana laga hayaa imse jir baa tahay uu 85 jir baan ahay buu ku yiri dhagahana laga hayaayo dhagahay xanuunaya markaas waa gabowga kugu wacan markaa uu jilbahana waa laga hayaa oo gabowga kugu wacan wuxuu madaxana waa laga hayaayo madaxan bay guuxa wuxuu gabowga kugu wacan calooshana waa laga hayaa gabowga kugu wacan waxa li wuxuu u sheegtaba wuxuu ka yiraahdo gabowga kugu wacan markaa odagii baa xanaaqay markaa uu adeer xanaaqi muu waan xanaaqi uu maxaa xanaaqi waayo waxaan ku weydiiyay gabowga kugu wacan baad leedahay markaas uu xanaaqa aad la timidayna asagana gabowga kugu wacan buu ku waxa maanta muslimiinta dhibaato haysato dhan waxa ugu wacan ma taqaanaan waa ducf al-iimaan iimaankooda daciif muslimku waa run ilaahay waan jecelahay oo nabigeena waan jecelahay kaleey salaatu wasalaam oo diintaada inaad barato waa jeceshahay oo diintaada inaad ku dhaqanto waa jeceshahay oo diintaada inaad ka muuqato waa jeceshahay laakiin awoodii waxaas oo lagu qabanayaba ka maqan misaalkeenu waa maxay waa nin gaajoonaya cunto rabaa inuu cuno cunto alii cuntadii loo keeno markuu halka u dhaweeyay waa qaraar caana igu qabtay buu caani baa lagu qabtay waa qaraar uu soo celiyay cunto bariisi keena waa loo keenay markuu halka keenay waa qaraar buu yiri waxa la wixii loo keenay halka markuu mariyo waa qaraar naftiisii way doonaysaa wuuna gaajoonaya laakiin halka markuu mariyo waa qaraar uu soo celinaya marka daba niga waxa lagu la talin orado dhakhtarka tag baloona waa bugtaay dhakhtarkii buu tagay dhiigii baa laga qaaday waa la baaray waxa la ogaado le adiga kaniica kugu dhacday malaria ku haysa حلو بالله يا مركا
daawadii malaariyada loo bilaabaya ama siroba lagu taaga ama kaniin baa la siin daawada la siin maxay tartaa ma taqaanaa dhiigga ayay ka safaynaysaa kanicada shay'an fa shay kolba in yar ayaa markaa waxa u soo bilaabmay markaa cuntada inuu dhadhansado kolba in yar misaalkeenu maanta waa caynka waan jecelahay diinteenna hadday dhallinyaradu inay nebiga uga raacaan oo saxaabada ku daydaan way jecel yihiin laakiin maxaa kaa qaaliba bi'adii mujtamacii kale ku jiidanaya inaad salaada tukato waad jeceshahay laakiin maxaa kaa hor jooga iimaankaaga daciif saa darteed baa jamaacatu dacwa waxayna leeyihiin war khuruujka bax war ilaahay dartii u baxo iimaankiina soo jadiidiya oo haddaad khuruujka baxdaan khuruujka waa jaamacad cilmi camaliyaad ka soo baran miskiidka fadhigiisaad jeclaan meesha xun fadhigeygaad soo nici doonta haddaad jamacadda raacdo dadka xunxun la socodkooga waad nici doontaa marka dambe dadka wanaagsan ubaa jeclaan la socoto indhahaan ku aragnay annagu indhahaan saarnay waa shay mujarraba oon soo taabanay weeyaan casigii labadiisa waalid ku xumaa markuu jamaacadda uu la bacay waxa uu soo noqday isagoo labada waalid baarri u ah غافلكي مركو جماعته والله بحي وكسر نقد أفرت بلاد وحوصون نقد سوق الذاكرة وأفقد صدقك كردقلا كي مساجد تحفظ السكر لها إيه مقاحية سوق فردية قيلة مركو جماعته وأفرت بلاد والراعي وعلى أرق سوق جات في مقاحية تود داي مسجد كدح فردية هذو دينتي كيف وقانا وعلى أرق سوق دين تجعله على الله فري سنة بدل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنجوري صاحب كدين تأو قبو كات صاحب كدقة الدين تيسا أي الدين كون نغني يسبو نجوري أنه والله نك الله صاحب إسكاك لذلك جماعة الدعوة رونا هانتي أن علم بدني نبري مايان ونوغهي لكن وحي كبرا يا المتغانا مجتمع في عمك وحريا مسكيت كفدي يسكو جعليسين يا إن العلماء وحكبرة تبي كبريا إن العلاقات حلقات كلا يلا تبي كجعليسين يا دتك في عم السعود كوجا يلا بدي كوجا يا تصو جعلان جماعة هذا إن شاء الله هذا إن هذه لا هدرت وضع بحضان شوف يا عمرو هذا إن شاء الله هذا هاي ورما البحيسانة بس حيس كل هذا دوسوما إلا مجتمع ماشى في الدنيا الموضوع بدنتين قالوا حين مركز كل الله فصحين وبحوض ديارهم لقوا قري ما يبلغ عنته وتاقوا لقوا دعينه هذا الخروج كجماعة الراعي ويدان خروج كلا بحي سايوه خروج كلا بحي ما تقانا خروج فيسبوك هبيني مالك هم عندهم كذا صداع عيان مقاحل فرديو يكال إيغو لبدا وقت كذا حكون دمين مر عليه مرقد فصح حق الشو هدو فصحوا لما بلودي هاي جماعات كافرت الرع هدو بلي هاي لما تنعش الرع انت كلاني هو يدا يا ابها وخدمه بحد الله بحايو حكمت بدل ما كنت جرت بشا لحاد صدبات سديدات جبوت لما اسبوع كهر شورى ان لهين وحق ان لغو غاري او مساجد لو قيبيي 500 iyo 25 jamaacayn la saaro waana xilliga fasax iskuulada weeyaan hadday dacwada Djibouti ka socdo lama arkeen baanag xilli waxaynu soo martay aad oran jirteen reer Djiboutigii baasaaye gabdhihii dirac sitay baa nagu soo xagaa baxee war bal nagala hadlaad oran jirteen baa soo martay soo ma hadde laakiin waa isbedeshay maanta sidii ma wadcigu uu isbedelay meel walba khayr ma ka muuqda sharku waa jira laakiin khayrkiina waa jira maanta oo dacwadii baa ka socota oo jamaacada iniga yimaada inaad idinkuna baxdaan ba loo baahan yahay markaas soo diyaarmaneen insha Allah inagu anfaco dambigeena Allah dhaafo dambiga waalidiinteena Allah dhaafo diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo علماءنا خصوصا شيخ عبد الله وهو الرجال الله إنه عافيه وحين قد انتنا الله ونحرسته ويحب كان عافمال الله الصيو أمني إيمان كان الله إنه أتكيه لأن يرد ولاية قدام الله إنه هديه تبدلوا دعاءنا جريه قبل المراد كيسو معصيه هنا إلهي قعنت ميدك هكا الصيو
dhalinyaradana insha Allah tacliinta ay ku jiraan dadkooga iyo diintooda iyo dalkooga anfacada Allah ka dhigo war inaguna dalkiina aamina warkii wax bartay baa tahriibaya ka warrama xageed u socotiin xageed u socotaa 20 sano kii wax baranaya baa tahriibaya 20 sano waxaad baranaysaa haddaad Yurub gasho waa zero tacliintaadu waa ka kac saad ma taqaanaa taksiila noqon taksiile baarkinka gaalada baabuurta ay dhigtaan bad ilaalin adoo doctor hadda tacliinta wadankaaga aad ku baratay wadankaaga qiimo ku leedahay wadankaaga aamin oo adigu aamin oo diinteena aan aamino oo inaku han aamino oo dhulkeena khayr ba ka buuxee khayraadka wadankeena la soo baxo han beerano oo gacanta farsamada ha ka shaqaysiino Allah inoo dambe dhaaf khayraadka dalkeena ka buuxana Allah inoo tuso wadankeena qiimihiisa iyo wanaagga uu leeyahayna Allah ina jeclaysiyo dhalinyarada qalbigooda dhulka gaalada loo qaatayna Allah ka soo jeediyo sallallahu alayhi wa sallam